kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo bilaabay qorshe ka dhan ah madaxweynaha Puntland iyo Daney oo qarka u saaran kacdoon dadweyne oo xilka looga tuuro Kenya oo u yeeratay Axmed Madoobe iyo qorshe ka dhan ah dawladda Soomaaliya oo xukuumadda Nairobi ay damacsan tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo saartay amar culus oo ku aadan fal argagax leh oo ka dhacay galmudug wararkeena kalena waxaa kamid ah Abdurrahman Abdishakuur warsame oo ku taliyay in la soo daayo Sheekh Mukhtaar Ruubow iyo sabab yaab leh oo uu dalbaday siideenta Sheekh Mukhtaar wararkii ugu dambeeyay ee natiijada doorashada Uganda musharaxa mucaaradka Bobi Wine oo guul sheegtay qodobadaas aan ku faafayn doona barnaamijkeena insha Allah waa habeen Jimcaha 15 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku maasantiina taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararkan oo gaarsiiyay saaxiibadiina adinkoo ku share garanaya baraha bulshada sida Facebook Twitter iyo WhatsApp mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in ay bilaabeen qorshe ka dhan ah madaxweynaha Puntland Daney waxaana la sheegayaa in deegaanada Puntland ay ka soconayaan olole ballaaran oo dadweynuhu ay sameynayaan oo ka dhan ah madaxweynaha talada haya ee Puntland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata leeyahay in ay dardar gelinayso ololaha maamulada ka soo horjeeda ay ku kicinayso shacabka ku nool xilli ay isfaham waa doorasho ay kala dhaxayso dawladda iyo maamulka Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha muddaxileedkiisu sii dhamaanayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhalinyaro lagu sheegay inay yihiin isxilqaamiyaal sida uu muujinayo muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada dhalinyaradaas ayaa ku nool degmada Carmo oo ah degmo ku taal gobolka Bari degmadan waxa magaalada madaxda ganacsiga Puntland ee Boosaaso u jirta ku dhawaad 100 kilomitir madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhalinyaradan waxa uu ku gubaabinayaa inay jeclaadaan dawladnimada isla markaana danta ummada Soomaaliyeed iyo deegaanada Puntland ay ku jirto dawladda dhexe madaxweyne Farmaajo ayaa ololahan uga gol leh in markaasi cadaadis lagu saaro madaxda dawlad goboleedyada oo inta badan aan ka shaqeynaynin danta ummadda sida ay dad badan ku eedeeyaan isla markaana taabadalkeeda ka shaqeynaya dantooda gaarka ah deegaanada Puntland waxa si weyn looga taageersan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase ahaatee nidaamka siyaasadda ee ka arrimiya ayaa dadka intooda badan caburiya waxana uu diidaa in ay muujiyaan inay soo bandhigaan fikirkooda ku aadan taageerada ay u hayaan dawladda dhexe iyo in maamulka Puntland uu noqdo maamul hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ka amar qaata madaxweynaha dalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashooyinka Soomaaliya ayaa qarka ku haya wadanka marxalad kala guur ayuu ku jira waxaana aad isku haya dawladda dhexe ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland oo siyaasad ahaan midaysan si kastaba ha ahaatee xaalka siyaasadda oo akrinawgeed ayaa dawladda federaalka Soomaaliya u doonaysaa in shacabka deegaanada kala duwan ee Puntland ku nool in ay dawladda federaalka Soomaaliya gacan siiyaan isla markaana Daney loo sheego in dawladda dhexe uusan la dagaalin wadayaasha dhaqanka Puntland ayaa kol hore la kulmay madaxweynaha Puntland waxaana ku cadaadiyeen inuu joojiyo dagaalka ka dhanka ah dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maadaama deegaanada Puntland shacabka ku nool ay aad u taageersan yihiin madaxweyne Farmaajo wararku waxay sheegayaan in haddii Daney uu sidan ku sii adkaysto mowqifkan uu sii wado ay qarka u saaran yihiin dadka reer Puntland inay sameeyaan kacdoon ay xilka kaga tuurayaan madaxweyne Cabdullaahi Daney qaybihii hore ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad ka daawanaysaan channelka warqaa TV meel kasta oo joogtaan waxaanu dalinahay jimco wanaagsan markana Kenya ayaa u yeertay Axmed Madoobe iyadoo qorshe ka dhan ah dawladda Soomaaliya ay xukuumadda Nairobi damacsan tahay warar aynu ka helnay ila lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegaya in dawladda Kenya ay u yeertay Axmed Madoobe oo magaalada Kismaayo ku sugan ujeedka lagu yeeray Axmed Madoobe ayaa waxa kamid ah in laga hadlo arrimihii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo mowqifka xukuumadda Nairobi ee doorashooyinka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Axmed Madoobe ku eedeysay in uu fulinayo qorshaha Kenya isla markaana uu xagal daacin ku hayo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada oo Axmed Madoobe qayb ka ahaa ay ku saxiixeen magaalada Muqdisho xukuumadda Nairobi ayaa inta badan loo arkaa in ay tahay taageerada ugu weyn ee xagga militariga iyo dhaqaalaha ee Axmed Madoobe ku haysa magaalada Kismaayo iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay Axmed Madoobe nidaamkiisa diidan tahay maadaama dadka Soomaaliyeed u arkaan Axmed Madoobe inaanu si sax loo dooran isla markaana dadka reer Jubbaland aysan u midaysneen isaga maamulkiisa aadna looga soo horjeedo dawladda Kenya
gaar ahaan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in si toos u casuumay Axmed Madoobe tani ayaa waxay ku sii abuuraysaa shaki badan ummad Soomaaliyeed oo ku aadan sida Axmed Madoobe uu ugu milmay siyaasadda waddanka Kenya Axmed Madoobe ayaa ka mid ah xubnaha diidan in dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay doorasho ka qabato dalka muddada ugu dhaqsiyaha badan maadaama dalku marxalad kala guur ah uu haatan ku jiro markana gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxa uu soo saaray amar culus oo lagu xirayo maleeshiya dilal qorsheysan ka fuliyay gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha Shuute ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya faray in ay qaadaan howlgallo ka dhana maleeshiyadaas oo markaasi marar badan dilal ka geystay gobolkaas kuwaasi oo baxsad ka gacanta dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu amar ku bixiyay in cadaaladda la horkeeno maleeshiyadii ka dambeysay dilkii dhawaan kooxahaas ugu geysteen dad shacab ah deegaan hoos yimaada degmada Balanballe kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa 5 qofood Shuute ayaa waxa kale oo uu ciidamada ku markaasi booriyay inay gacan weyn ka geystaan sidii sharciga loola tigsan lahaa maleeshiyada hubeysan iyaga oo markaasi dadka shacabka dhibaatooyinka u geysta ugu dambeyntii waxa uu xusay in dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay hirgelinta ciidan cusub oo uu sheegay in maxkamadaha dalka ay kala shaqeyn doonaan soo qabashada dambiilayaasha ciidamada oo uu sheegay Shuute in ay markaasi kaalin weyn ka qaadan doonaan sida cadaaladda loo horkeeni lahaa shakhsiyaadka baxsadka ah ayaa waxa uu sheegay in muddo badan qorshaha lagu dhisayo uu soo socday sida uu hadalka u dhigay dhanka kale hadii aynu fiirinana hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku baaqay in la sii daayo Mukhtaar Rubo oo Mansuur oo in ka badan 2 sanadood u xiran dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay in Mukhtaar uu qayb libaax leh ka qaadan karo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo 2 bilood markaasi go'doomin ku haya gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur oo 2 bilood aanan dhihin ka badan dhibaato ku hayalkaas hogaamiyaasha waxa uu sheeganayaa in hogaamiyaha xisbiga wadajir uu Facebook ku soo qoray in dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya looga baahan yahay inay wadajir uga shaqeeyaan wax ka qabashada dhibaatooyinka ay shacabka Bakool ka sheeganayaan deegaanadaas inay ka jiraan siideynta Mukhtaar Rubo oo Mansuur ayaa waxa ay ku noqon kartaa culays weyn dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ninkani uu hore uga tirsanaa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab isla markaana aan wali dowladda federaalka Soomaaliya ku kalsoonayn in uu si sax ah oo nidaamka iyo shuruucda dalka waafaqsan uu dowladnimada uga shaqeyn karo ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka guud ee dalka Uganda ayaa sheegaya in musharaxa Bobi Wine oo uu ugu horeeyo musharaxiinta mucaaradka ee la tartamaya madaxweynaha xilka Yoweri Museveni uu ka hor yimid natiijada doorashada Bobi Wine ayaa sheegay in doorashada lagu shubtay isla markaana uu dhacay been abuurkii ugu weynaa taariikhda doorashada ee dalka Uganda waxa uu shaaciyay in uu isagu ku guuleystay doorashada oo uu madaxweynaha la doortay yahay Roberta Mugabe waa Roberta Kogwaya ninka la yiraahdo oo magaciisa loo yaqaan Bobi Wine ayaa ku dhawaaqay inuu isagu yahay madaxweynaha sharciga ah ee la doortay halka ciidamada military dalkaas ay go'doomiyeen gurigiisa natiijadii ugu horeysay ee hordhaca oo la baahiye ayaa sheegaysa in codadka 23% ay muujinayaan in ay markaasi si weyn uga horeeyo madaxweynaha haatan talada haya isla markaana uu isagu yahay ninka guuleystay Yoweri Museveni ayaa hogaaminaya codadka daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad si toos uga daawaneysaan channelka Warqaa TV waxaan idinkaga mahadcelinaynaa daawadashada iyo la socodka wararkeena iyo barnaamijyadeena haddii ay ku tahay markii kugu horeysay ee aad channelkeena soo boqoto waxaan si xushmad iyo qadarin ku dheehantahay daawada kaaga codsanaynaa inaad channelkeena rukumato oo aad subscribe tiraahdo sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka ugu dambeeya Soomaaliya ee aynu halkan soo gelino maalin kasta 3 jeer tan iyo kulantadeena dambe barnaamijka lamid ah akhyaarta aynu jecelnahay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo kulantada dambe oo xiiso leh